kala soo hadlaya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho saaki waxaa laga soo go'tooyay ciyaartoyda koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasoo amar ka soo baxay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdisiis Xasan Maxamed Lafta Garan uu sheegay in dib loogu socdo magaalada Baydhabo kadib markii shaqaqadii ka dhacday garoonka diyaaradaha lagu dhaawacay wasiirka ciyaaraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo go'tiyay terminalka aadan cadde kuwaasoo maanta ku wajahan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay wasiirka ciyaaraha koonfur galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ciyaartoydan ay ku laabanayaan magaalada Baydhabo oo qaadayo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dawladda federaalka oo run ahaantii maxaa la dhahaayay asiga markii soo rabaan qaaday badqabka iyo amniga maxaa la dhahaayay ciyaartoyda iyo caafimaadkooda sida wada ogtihiin maxaa la dhahaayay koonfur galbeed waa markii labaad dhibaatada loo geysanayo go'aankeenana wuxuu ahay inaan ka harno aan ku laabano deegaankeena sidoo kale waxaa rabaa meeshan inaan baaq ugu diro xildhibaanada dawladda federaalka ee ku matalo dadka reer koonfur galbeed waxaan leeyahay xildhibaanada waa inay la xisaabtamaan jawaab cadna ay ka keenaan ciddii waxaan ku shaqo lahaayeen oo ku mid yahay wasiirka dhalinyarada inay u wacaan ka wareystaan insha allahu tacaala dadkii koonfur galbeed waxay idinkaga fadhiyaan jawaabta ay ka keenaysaan sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha dawladda koonfur galbeed run ahaantii door muhiim ah ku lahay mar walba in ciyaartoydan badqabkooda laga shaqeeyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaa taageerayaashii quruxda badnaay oo ciyaartoyda garab taagnaay waxaan leeyahay idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin cid walba oo garab iyo gaashaan u ahayd xulkan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin ugu dambeyn waxaa rabaa inaan meeshaan ka dhaho dadka qaar waxay aaminsanayeen go'aan ma gaari kartaan oo go'aan beriya ka laabanaysaan ay dhahayeen go'aanka saa u gaarno waaye go'aankana ilaahay idinkiisa waa fulay haddana waxaa u kicitameynaa magaaladeena Baydhabo waxaana gebi ahaan isaga harnay ciyaarihii maamul goboleedyada annaga ool waxaan u maleynaynaa gobolka banaadir marka imaaneen isdhexgal bulsho laakiin waxaan wanaagsaneyn aan kala kulannay sida la ajligaan aan u go'aansanay inaan ciyaaraha isaga baxno dadka hawshan iska lahaynana waa lagula xisaabtamayaa cid walba amniga ha noqdo wasiirka ha noqdo cid walba lug la gashana la deemaayo marka arrinka insha Allah saas waa wiilashan way sii baxaan hadii la yiraahdo shirka ilaamaha amniga si dhaqsiha badan waa kula xisaabti doona hadii la yiraahdo cid la isku haray ma jirto xilwaanada soo dhaways dhamaantood waa isku midaysan yihiin arrinkaas hadda insha Allah hawshan way socotaa mana dhamaanin bilaa waaye marka hadii la yiraahdo hadda ciyaartooyda garoonka ku soo wadaynayna ani saaxiibkay xilwaan maxamed iyo xilwaanada kale way joogan PIB-da joogan anaga hadda meesha waxaan joognaa localka insha Allah hadda ciyaartooyda way xaroonayaan waa sugootay maanta insha Allah Baydhabo ku soo deg doonaan heer Baydhabo waxaan ka rabaa in ciyaartooyda soo dhaweysaan gacmo furan iyo jacayl ka u qabteen in si fiican loo soo dhaweeyo iyo mataqaana taageerayaasha xamar joogaan dhamaantiin waa ku mahadsantiin go'aankan waafil oo jeedin limidini jibinin mataqaana insha Allah mar labaadna ma soo dhici doonto dadka hawshan iska lahaynana waa lagula xisaabtamayaa cid walba amniga ha noqdo wasiirka ha noqdo cid walba lug la gashana la deemaayo marka arrinka insha Allah saas waa wiilashan way sii baxaan hadii la yiraahdo qaar ka mid ah ciyaartoyda oo la hadlay dhanka kale saxaafadda iyo dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta dib ugu laabtaan magaalada Baydhabo walidii goro darad ku dhii magaalada Muqdisho aan kuuna meel yaray meerajay ni wal ahaan kumida ka barak salaxaadeen tidii kale koonfur galbeed ahaan ku jaagnay magaalada Baydhabo meel barajeenay oo martigeli doonaan gobolka soo natarajeen bilaa garanad laakiin ma malaynay oo martigeli magaalada Muqdisho kumida haadoono projectayna maamulka ما ميل رأي إبراهيم عجافو كدو 5 TV ميل رئيس دفاع لو ميل رئيس يارو يو ميل رئيس حقدو أو ميل رئيس بلشة ميل رئيس مرول بون كتيجين إذا كمان نعان تيجي كلام أنا ميل رئيس ما يرابطون سفرنا أنا مقالة بيدو أو عاصمتكم ملقار كدولة دولة كونفور قلبت يرابطون كوجهنا ما رجعنا إن شاء الله أنتيونه إلهي نبني جيدون
تيدا كلا معنا ميل رئيس ولا نسافر كان أو ميل رئيس حتى بيدون كواجهني أو أنا يارن من ما يتميتا معلومة إنك دم بين دباتني جيسي درتي يا ميل رئيس إني أنتم وايت أنتي وأنا ميل رئيس حمر كسينا كان ميل رئيس إن شاء الله ما ينجين مقالة بيدو سفر سلامة رحمة ميل سين لها مرويل بمعنى ميل رئيس يمكن دقي أنتي وأنا ياروه روايتن أو ما يبلغ كتلا قال يارو إسده قلب بلوش نبدين قال كتلا قال أول إسكبرد لان أم أنا ميل رئيس ما يكين كوي هرجيسو كوي لان أم أنا ميل رئيس بقول كوي لان أم ميل رئيس كوي هذا بيدو كوي لان ميل رئيس دينسور كوي أنت أسيد أم أنا ميل رئيس إلا روس مرب كوي اسكو مدلي كين ولا بلغ كتلا قال أنتي وأنا دتك إسكبردن كولا لو لان كتلا قال ما أي يارو أنتي وأنا ميل رئيس قبيلتي ولا لان استعمال ما يسين لا إن شاء الله ميل رئيس أنتي وأنا يسين سكو ديو دونتان إن شاء الله سفرنا همرا بيدوين جدنا إلى أين من يجي إن شاء الله. محمد ونير محمد فايف سومالي تي في هذا العدد.